qof kasta waxa uu rabaa inuu cayilka iska rido waliba si fudud isaga oo aanan wax jimicsi ah samaynin cuntadana u cuna sidii hore uu cuni jiray cidna ma rabto in ay marto wadada la hubo ee cayilka la isaga dhimo oo ah yareynta cuntada dheeriga ah iyo samaynta jimicsi joogto ah tabadalkeedna qof kasta waxa uu rajaynayaa in uu helo qaab fudud iyo waqti yar oo cayilka saarani uu isaga rido waana sababta keentay in social media ay ku bataan sheekooyinka la xiriira cayilnimada degdega ah kafeega liinta leh ayaa ah sheekada ugu xoogan ee taala baraha bulshada waxaana aad loo hadal hayaa in kafeega liinta leh uu cayilka si degdeg ah u rido mana aan wixii ugu horeeyay ee lagu sheego inuu yahay cayil dhime waxaana ka horeeyay waxyaalo kale oo ay kamid yihiin isticmaalka xawaajiga huruudda malabka oo lagu daray biyo kulul iyo liin inay yihiin dhammaantood kuwa si sahlan cayilka la isaga ridi karo balse midkoodna ma keeno cayil dhimida noocaasa kafeega iyo liintu waa kuwo waxtar weyn inoo leh waxaana ku jira nafaqooyin uu jirkeenu ka faa'iideysto marka ay timaado cayil dhimidana labaduba waa muhiim oo kafeega waxa uu ka samaysan yahay maadada kafiinka oo kor u qaada shaqada jirkeena halka liintuna ay tahay il aan ka helo vitamin C dhanka kalena waxa ay keentaa in qofku uu dareemo dhereg balse koob kafee ah oo aad jeex liin ah ku miiratay ma keeni karo in aad iska rido cayilka kadibna aad dib u xirato surwaalkii iyo shaatigii aad xiran jirtay markii aad caatada ahayd sababtuna waa in cayilnimadu tahay arrin u baahan shaqo xoog leh oo baruurta lagu gubayo si loogu bedelo tamar uu jirku ka faa'iideysan karo sitaa u dhacdaahina waa in laba arrin oo isbiirsaday la helaa waa midda koowaade waa in aad yaraysaa xaddiga cuntada ah ee aad cunaysid badashaana nooca cunto ee aad isticmaashid tusaale waa inaad qaadataa cuntooyinka ka samaysan isku dhisyada xoogga leh ee aysan dhiifshiditaankooda u sahlanayn jirkaaga waqti dheerna ku jiri kara caloosha ama waxa loo yaqaano complex carbohydrates oo ay ugu horeeyaan cuntooyinka qolofta leh kana fogaataa cuntooyinka fudud ee isku dhisyada sokorta u badan ka samaysan sida shukulaatooyinka macmacaanada kale iyo wax kasta oo fudud oo jirkaagu si dhaqso ah ku isticmaali karo waa midda labaad waa inaad samaysaa jimicsi xoog leh oo joogto ah si aad u gubto baruurta jirkaaga saaran waana in aad ogaataa in aysan jirin wax badiil ah oo adiga oo sidii hore cuntada u cunaaya misena aanan samaynaynin jimicsi joogto ah uu keeni kara in uu miisaankaagu isdhimo oo aad noqoto qof fit ah misena aad yeelato muuqaalka wanaagsan ee aad ku riyoonayso